kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba meel kasta naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni Kalsan iyo Kambala oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno suxufiga weyn ahna qoraa hal abuura Daahir Cabdullaahi Calasow. Daahir ku soo dhaw telefishinka caalamiga Kalsan. waa maantahay England iyo Saalax Ali oo ku soo dhawahay malaha markii labaad Kambala ni maadaweey laakiin sheekad iyo maanta maanta la sheekaysanaya ya soo dhawaad adiga iyo أصحاب اللي صعد كاسل تي في ودالي سان كاسل تي في ولبا كاسل تي في وحنكو حسوستا oo aan si gaar ugu fiirsadaa nin aan saaxiibano soo shaqeyn oo waxaan maqlay fannaan ama in abwaanaha aalada la xasaara nin warka markuu akhrinayo barnaamijyada iyo warka la xasaara Cabdiqaadir Nadaara ayaa ka shaqeeya marka xiisa gooni u leeyahay كاسل تي في aan waraysi thank you waxa dhici karta inuu ku daawanayo Cabdiqaadir Nadaara bal marka ugu horeysa Daahir Cabdullaahi Calasow nin caan oo saxafiya tahay bal taariikhdaada oo kooban Daahir Cabdullaahi Calasow wuxuu ku dhashay Xamardaye waxa jiro wax leeyahay Xamar iyo Xamardaye malaha kan fogiyo reeraha caanaha ka jira Xamarana waxaan ahaa nin soo dadaalay oo wari badan ay soo qabsatay laakiin waxaan doortay ugu dambeyntii inkastoo shaqo kulli aan ahaa inkastoo reerkayga la doonay inaan dhaqtar noqdo haddana aniga waxaan doortay inaan suxufi noqdo أول بس فيتو كادرنا وحن طورتي أنا قصدي فيتو حبارة وفيسكيت جورنالست كل هذا الدول وقت هايو ضل بربري عندول الله هاي نوريها كشقي وهذا وحباني سنة قاعد جيسن وهذا قبيلة الصهيان ما لك استطاعوا غكو سويري أيامي روح مغرج ده هو واسباي أو بصاص وحمغرج ده هو بعض كبات كقاعدة واسكات كستوح مغرج هذانا ممكن تسلم كبح أو كريستن واحد مغرج هذانا هو قبيلي قبيلة دقف كستوح قبيلة وقت الشوق قبيلة ده أنا كمان فانا لكن واحد وقتها waxay soo mar dhibaatooyin fara badan qorunti hadii buug laga qorna buuga ka qoraa buu leehdo narrow escape farcijiye ayaa ku baxsaday okay hadan ka dhex galo iyadoo dad badan ka aaminsan yihiin inaad suxufi tahay si khaldan mararka qaar ka bulshada wax ugu qortid website-ka aad caanka ku tahay waaga cusub ay dadku aad u eegaan markasta oo far lagu gudo hadii la yiraahdo Daahir muxuu yahay ama waa shakhsiyadiisa waqaf sidee maxaad isku tilmaamay waxaan isleeyahay macallin baraya saxaafadda ama dadka Soomaaliyeed baraya waxay tahay saxaafad madax banaan waxaan isku tilmaami lahaa inaan ahay geesi u horseedayay suxufiyiinta Soomaaliyeed inay bartaan sida loo soo saaro war macna leh oo ku salaysan dabagal waqti badan qaatay waxaan isku tilmaami karaa inaan ahay nin u bareeraya wax halis soo ah mid soo wajhi karto dadkayga iyo dadka baxsan sida alqaa'id oo kale waxyaabaha qorayarana waxay u noqon doonaan tusaale wanaagsan suxufiyiinta soo korayso waxay sidoo kale inta arin aad ugu riyaaqan u noqon doontaa suxufiyiintii aniga iga horreeyay okay markaan u soo noqdo waxa jirta warbaahinta Soomaaliya ama TV ha noqoto ama website ha noqoto inay dadku yiraahdaan saxaafaddu waa midi laba af leh oo kolba sidii wax loogu jaro ayay u gudbaysaa haddana khaasatan website-kaaga adigu aad leedahay waxa jirta dad badan oo ka cabanaya dad badan oo uu dhibaato ayaa igala soo diristay dad shakhsiyan oo abaaray oo shacabka cabasho weyn taamxad ka jawaabay oo dhacda qof kasta badnimada maxamed هذا نتدع everybody has special idea قف تفكر وقاسه اللي هي لكن أنا ضدك واحد بري نك العقد اللي تجاك إما القبيل كحل يقول كرا يمكن قبيل كوين كذا شيء هو كاستين وحلا شيء كرا ما فهمتي ضدك واحد سني إن أنا تتجارة أقول لي تخليه وحلا يقول كرا ضدك واحد بري إن محل ذي الصحافة ده إذا قراها يستان إن تيدو أي سرعيسه مركا waxaan u dhigi karaa dadku waxa siinay 10 bal tusaalooyin wanaagsan ah yaa siinay
waxaan hubaa maanta inaan wax weyn ka bedelay saxaafadda Soomaaliya waxaan hubaa inaan soo saaray media oo leeyahay media online oo hadda rag aan xaar ka wadaan iga sareeyay iga horeeyay oo aan aqoonin si wax u qorayaan garbash ka dhacay in kastoo ay ka badbadin fara badan ay dhacayso oo markii rabo nin saxafiyo daar cala soo wax kritik kareeyo oo ku daydo marka qaar uu haanta uu buuxdaafiyaa ina buuxdaafsan waa fiicna oo waxyaabo jira waxyaabo ajrin in la abuurto saalooyin ayaa ku soo qaadaya aan rabaa saxaafadana aan ku taageero oo aan uga dhigo kaalmadeedina aan uga dhigo waxa weeye marka aad qof inuu ka baqo ama marka inaad macaamiil badan yeelato haddaad maanta hadal beena sheegtiyaa sheegay hebel ahaa kaas loo fadhi maayo leeyahay warkiisa waa iska maalayaan ka socod maxaa la rabaa markaad wax maqasho marka la buudo qorma ah waa inaad waqti badan qaadataa oo dabagal ku samaysaa oo wax xufan oo la soo kala miiray oo la soo xaqiijiyay aad ku soo dhigtaa hadda aniga waxa jooga Kampala waxa jooga talka deegaanka Mascooti adigu muddo bil ku dhow waaga cusub in yar ku qoray maalmo ka war ku qoray haddana marka hadda gasho online-ka dadku iska buuxaan waxa laga yaabaa ilaa ma October dhawaadka inay wax ku qorin dadku way sugayaan waxaani aan keenaa ma fahamtay marka rag badan soo bax waxa arkay website cajiib ahaan arkay oo dadka kritikaraynaya oo maanta waa la wada baqayaa fanaanka xitaa hees maxadi karo wax qaldan ma sameey karo wariyaha wax sameey karo waa la isfiirsanaya waa la iskaadaya ninka bilaaban anigu ahaa arintaas laakiin waxa la yahay baasha tartiib okay dadka ka dhigay dadku waxay yiraahdaan daahir waa nin qabyaaladeysta oo inta badan waxay kugu tilmaamaan inaad nin qabyaaladeysta oo dhinac inta badan xiriya arintan xigta orta qabyaaladeysta qof kasta qabiilka la fahamkiisa uu jira oo qabiilka ka dhashay anigu markasta waa taageersan laakiin xumaanta kuma taageersan laakiin dadku ciidan ah ma yaqaanaan bari waxay dhigi jireen waa reer Oodal state bari waxay dhigi jireen waa reer Qaatimo state markii adana la ogaaday inaan ahayn waxa la raadsataa gabaraan qabo reer Qaatimo la soo waayay gabaraan qabo reer Oodal la soo waayay iska daayeyaashii kulli waa ka abtirsaday marka anu markasta waxaan jeclahay waxaan ahaa ninkii ha iyo a iyo wa iyo i iyo ya isbeeyay reerka ka dhashay hawiyaha ninka isbeeyay xabad soo qaatay oo yiri haad waxay taagantahay halgan joogtaa aad waxay taagantahay argos joogtaa waad waxay taagantahay weerar joogtaa iid waxay taagantahay isnaacib joogtaa yaad waxay taagantahay yaab joogtaa aad waxay taagantahay eber joogtaa maxaa haysaa laad sana kadib ma fahamtay markaas qabiiliyana marka waxaan ahaa ninka qoray maqaalkii 1993 la jiray حليمة قليف مجاهدة سادة علي قرارك وصل قلنا وحن كلو سؤال شكلا كويدين يا واحد هاي ما دام الشعب بدل إيكاء مسني تدخل بنا شعب بدل نكو تاجسين هي هذه ويب سايت كذا حرير إنتاج لك باكر حيد بالشدة وكل مجتمع إنتاج لك باس صوب أرض حاجة شكينية بشوف مالك شكينية أنا بدت أقرأ سايتين أنت بدت حماقنا هذا في عنده سوالف بدرس لكن waxaan ku sheegay hadaan maanta dadka sheekeynay nabada ka dhacda xamar oo Soomaaliya sidaas la soo waafaqay dadku wax soo fiirnay mal hadda maanta dabaqay ugu dheeraa oo laga dhisay wax soo fiirnay markaad sheegtay wax kritik ah oo madaxweynaha kritik karayso oo ra'iisul kritik karayso oo garbiga siyaasadda kritik karayso oo ganacsiga kritik karayso dadku hadalkaas rabaa dadku ma rabaan hadallada kale laga sheekay ma rabaan dadku maxaa sawir ahayn ay isweydiinayaan dadku way arkaan maanta qarax dhacay leedahay qofkii stress oo ka qaaday meel wala qarax ka dhacay laakiin marka soo badhigto wax qarsoon marka shacabkii aan yadu xadii kara bari waajistay aan dadkii salaam jirta xakiimti ana waxaan aniga ugu horeeyay maxaakiim diiday waxaan aniga ugu horeeyay ee al-shabaab diiday ee cadeystay aniga markii 16 June markii la joogay 2006 ee xamar Martin Elder dadkiis ninka ag taagnaa ahay ee habeenka cambaariyay maxaakiimtii laga baqayo aad xash irbiis dadka qaatay habeenkii kala baxay ya waxaan ahaa ninkii u adkaystay wariye ugu horeeyay استقال سايبر أنا يقول قبل يعرض لي جيفت قولك أنت لا يوصل قرا أقول جام فرو وقار لا يورد أي قاضي وحي قاضي إبراهيم حاجة عميعات وحي قاضي هذا حاجة شعير أحمد بيقول أنا هذا أمير كذا برياس خوي بجودها وحكيتوها رك فسول عبد الله رك ترى ودرك أورش الرئة القاعدة نسك أفريقيا يا قاضي واسك حراجي إنه مش ما كده madaxweynaha yadartan uu dambeeyay Axmed Abeenki idsi oo inta rag u soo xalaqad siiyo ka booday okay waxa jirtay inaad baad in ka dhigay inaad baad dadka ka qaaday oo website-kaaga laakiin markaan yaraana waa shaqaysan jiray marka dambe nin dawada ganacsiga Soomaaliya dawada ugu badan keesadaan ahay dadku ma yaqaanaan laakiin waan ganacsan jiray baad baan qaaday dhageyso marka baadan ay ka sheekay waxa ku leeyahay
نيو أيام كرسينا مكتوب بعد أيام كنا مكتوب يقول لي نيو ده عشرته نيو ماشي ده سي وحي وقت ده السداسة سمستا وارنتا نيو سكرنا وانا أنت سقاطه أيام بالعكس كرسينا مكتوب لكن أنا جا عندي شيء يا مركا يرانا شغله ماشي وهو شغله قبل يا ما أنتنا وأنا هنيك أقول دقالها بس في الصوماليات نيك أقول دقالها بدلنا أكو يوسف بحان marka inaan kaga baahan hadan kaga baahan ragaan ugu hoosaynay oo milyaneer ayaa ka qaadan lahay baash laakiin aniga waxaan rabaa yoolkayga inaan gaaro ayaan fahmay lacag haysta okay shaqo kale oo way ugu leeyihiin badaahir lacagtan shaqo kale oo website ka warbaahinta laakiin shaqo kale oo ku dheeri jirtaa wallahi aniga ganacsadana hay waxaan leeyahay waxaan ganacsadaa dhulkan ganacsadaa waxaan ganacsadaa dawada ka ganacsadaa waxaan ka ganacsadaa online ka ganacsada hadda maartay xayeysiimaha caalamka ay bixiyaan ka ganacsada marka maanta duruuf shan lama joogo xitaa 9 lama joogo duruuf maanta dhaqaalaha ku qasbaysan qof waxaysan ya hadda waxa laga yaabaa maanta hadda hotelkan ugu soo booqato ilaa dhaas hotelkan ka bixiyo basaasa ma aha laakiin lacagtan ku tagana Mareykanka iyo Yuhuudi iyo waxa ka sheekayaan wala yahay marka aan koobareed karnaa dawladda wala isku koobareed karaya laakiin wax oo fadhiida dhaqaale ma leh inta tacbaday ayaa ugu filan laakiin go'aankii wuxuu yahay inaan dhinto anigoo baraya dadka waxay tahay saxaafad madax bannaan adu waxa doonta aaw wayna soo hanjab wadada intee leeg baa markaa saxaafadda barsi maadaama shacab badan ka aaminsan inaad warbaahinta si khaldan maanta ma aaminsan shacab badan maanta waxa aaminsan in yar oo aan ugu hoomeel ku go'do intaas sideed ka saaraysaa inta waxa ka saaraya markaan wax ka soo sheekeynayo waa lagu barnay dad badan wax sheegi jiray islaamku nacab yahay in islaamka nacab yahay waan ogaad nimankii aan ka sheekay jiray al-shabaab ee lagu nacay maanta waa ka dad waxaan leeyahay hadda adeena cadaalad darro ku heshiin cadaalad ku dagaal doona waxa loo soo xafiican inay gartaan macluumaadka la soo gudbinay waqti la gelinayo waxa muhiim ah in waxaan runahay la iska dhaafo waxaan runahay in la iska dhaafo aniga haddaan been sheego maanta hadalku wuu beenoobiyo halkaas ana ku xeewa laakiin haddaan run sheego waa iska faraxsana ka hor haddaan xitaa waxa cunaysto biyiga iska cabbi oo ku faraxsana waxa aan sheegay message-ka aan gudbiyay in run noqday salahan ma sameynta badan laakiin waxaan sameeyaa war ayaa saaraya bishan lagu jiro ee September wuxuu run noqonayaa waa soo link garaya bal December waxa qorna arka marka faham markaas haddii laakiin aan ahayn yaro liito caada qaataha laba shisiinayo haddaan Allah inta soo taagay inta lagu qaadanayo weerarka cirkeed u lagu qaaday yaa loo okay sidoo kale tahay kuma koobnid inaad wax qortid oo website kaaga aan tahay website kale oo badan oo aan ku aadinkeeda leeyahay waxa tahay qoraa haddana hal abuura waxa ugu horeysay aad qortay buugii kugu horeeyay ama heestii kugu horeysay ee aad qortay aniga iyo Cabdiraxmaan Cumar Madow Dalmar iyo Bashiriin iyo Allah naxariistay Ibrahim Daawud Mudee weynaha iyo yardi jiray aamka iyo maxaa kormaada iyo waxaan ay rag qori jiray Muqdisho arrimihii bulshada aniga waxaan qoray sheekadii ugu horeysay waxa la jiray ma boqol caashara waxa ku xigtay dhibanaha maqsuudka waxa ku xigtay dikaan jacayl waxaan qoray sheekadii jiray jacaylkii shanta maalmood jacaylkii maalmood waa la dooyaa wuxuu ku leeyahay taqana waa aw lakshib oo leeyahay baby shikaanti moor heesii marka laga soo jiray Muqdisho waxay noqotay wiilka degdeg ah isku guursanaya waxaan ka xasuustaa waxaan ugu magac daray astaan u dhigay arbacaan isbaranay khamiis ay soo mehersanay jimcaan wada aqal galnay sabti waa isku booqnay axadna waa ka tagnay waa 5 days of love waa shan maalmood sheekada jacaylka yaa sameey jiray waxaan qornaa escape book leedo oo 2006 soo baxayo waxaan qoray almost a date yaan qoray oo English soo baxayo marka heesaha laakiin aniga heesaha waxba ay ugu riixay heesaha xoog 93 ilaa hadda dabadan sayna waxaan marka hore ma teeri garaysayo inaad bal maadaama hal abuur tahay quraana tahay inaad maslax ka heestid oo aad codkaaga shacabka ku qadis horta dad ogaan lahayd markaan heesaha wadna ilahayd codmaanteedu برمرو حسنا تاك وانا الله إنه هيسا عرادا وروح مقباس بحدا هيسا وما هيسا اللي باش واسكو يعدها لسك نعرف دقيقتي هيسا هذا راح يعرفون قاعد صعب جرد مركا حاجة هيسا إنا عضي هو هيسا تاسدد وإبر بابا بقوي لكن بريجو روح نجي على سمين تعريضة سفي عنو ميد سمجري قصيرة سمجري لكن ما كده بوحدة حاجة على الله حاجة ضدنا صاحب بدأ تعريض زميل لحنك وحاوج على هاي عبد الكريم فرح قاري نلملح مستهسا وبان صومالي سمي يا صاحبين كوا فدينو
ayuu iga sheekay jiray sida macallin uu ii bari jiray maxamed al-shamuuri isagana aad uu ii bari jiray bashir al-xuseen si fiican uu baashii fahamsay bashir waa qatar bashir weliba dee kaliya laxanka ma fahamsin xataa ereyada sida isugu jaangooyo ayuu i fahamsiiyey markaan la xasaarayo marka heestii kuugu horreysay aad samaysay aniga heestii ugu horreysay aan sameeyey waxaa la yidhaahdaa beerkii adaa ku weyn caashaqu baabenka way bukaan xaalkani kuwa bilaahi adayga weyn nafteyda barbaa tahoo jacayl igu baahay baa inta waxaa ku xigay hees la yidhaahdo ma dhabbaa amooruhu ma dhaca jacaylkan dhalil ma igu qabataa dhaxal suga miyaan ah balanteena dhiganay dhaalin axdigeennii kusha miyay dhammaanayn dhabtayga kala dhiiggaad ku milantoo dhaayaha kugu doogsaday dhambaalkaygan wuxuu ku yidhi dhagar dumar haygu wadi labadaas heesood waxaan siiyey maxamed al-shamuuri yaan siiyey waxaa jira heese kalaa jirto heestan uu jeclaan rabaa ana barnaamijka maanta gudaafur waxaa leedaha heesta dee aan leeyahay markaan maqlo waxaa la yidhaahdaa aabe aabbahayga calow geesigii laga beeree wanaag igu gardaadshow geeridu xaq weeye markii iilka lagu geeyo malaa'igta kuu soo gashaa kuma guhaashaan aabe allahay kualsiiso allama gafaankii godka waasac ku noqoy aabbahayga calow geesigii layga beeree wanaag igu gardaadshow geeridu xaq weeye markii iilka lagu geeyo malaa'igta kuu soo gashaa kuma guhaadshaan aabe qaaladan waa qaaladan gabadha soo jecla waa qatar ugu qaaladan waa qatar soo aktar galayso macnaha qofal laxanka u dhiibaysaa laxankii daana cod ma ogtahay horta ana ma jila qaar laxankii markaan u nanaafso waxay si fiican u jiraysaa fiir hadda waxaad u fiirsaa hees ameeraya dad aabe ka dhigay dad aabe hees samaysay hooyo meeday ka waa soo wada hooyo halacsigaagi ya habeenkii hargeysi halkii aan ku kulnaa hilmaami doone allah ay ku hooday allah ay halkii roon hooyo isleed oo ajiiba marka la xamala sameeyay garana ka sheekay inan haddaad maqasho qoraalku waa isku mid waxay kala duwan yihiin dhawaaqa markaan ku yeeran ku dhaho iglanay waxaa la fahmi qofka dhigaha la ama indhaha la wuxuu maqlayaa inaan meel fog kaaga yeeray laakiin dadka dha iglan way la joogtaa laxankana waa sidaas salaanada hooyo marka u heesayo bal ogaad tahay hooyo aab mid lagu ma qayrin karo hooyo badii aab kan xisay nugta waxa soo wada hooyada sidaas loo raxaynayo ya hoos loogu yeeray waxa sal raadinayaa wiil macud macaan oo anigu fanaantu waxaan jeclahay yadeer xasan wada waa jecla xasan wada waa qatar ninka leeyahay awaare waa jecla nin la nimcaan hilaa waa jecla soo hadda soo baxay isaga soo qaado ninka leeyahay cabdihulan isaga cod ahaan waa jeclaha aad u taageeraa liibaan jijiga ninka leeyahay isaga waa top raggi baad soo tirisay habliina baad jeceshahay hablaha ii soo qabo gabadh leeyahay farciifisko qaaladan gabadh leeyahay ilaahay ku hawakiin waa macallimadu way actionka u baahnaysa inta la rogayso intaqana ilaahay ku soo diiday gabadhan leeyahay ayaan kambaalo وعد مع أنت إذا قتر ويل وسدوا في حتى كذا عجيب شيء جريس أكيد وإحنا نعرف كذا ويجريس قتر ويل مركا أساسا نقيم يعني مركا فنانتي واحد شيء يريراي تشيلكي سوكا مركا نو فنانتي اللي هوري يد أضو حسيسا أنا وجوار باجرتو هذا أنا جوار أسيري كلام هسه كلام ما تجستم ولا تضاهر عيل قدر هو جعيل هذا قصدني مش نالك عليه سا يا شقايكي مركا يرا يميرعي هلاي ينويغمي ديانودي يا كو هاي waxa jirta isleedo iyo ku dhicin ilmada ida abaasatay isha sacabka mari abqaadi xasiim yab waa qatar mugta qatar marka allah ay fogeyda ya golo gori ay meen gaar ku sabi heesaheeda kalama dhacaan waa qatar bal hees khadra daahir leedahay oo in yarad la codka noo saartay maya aniga si aad u tustay shacabka inaad hees qadar daahir iwan ogahayo aktarada doon ogahay inay waliba aan dhigi karo hooyada jacaylka ee fanaaniinta Soomaaliyeed heesada ma agti galay karo ma qaadi karo laakiin heesaha qadar ee tusay waa wada macaan waa wada mid sidii waxa shan ka helaa
معانا أي واحد والبوحيس مركز قدر وكاسة وحن كوكس الله وانا يا جبريل قال لنا طب ايش ويديني ظاهر بحورت قال لنا هسوي الحريصة واحد جرى هسها هسو هذا اللي يدي بي هسا نوجع لها يا جبتون هسا الله حوصل لي جمال ميعاد الله عليه سمطر ورم وضدك اللي يسوق قاعد هسا يفكر واحد اللي ده هنجو هذا اللي سوى أكتر كريس وديا بس سوى أكتر كريسي وحن هو هسه هذا قبل كده ودي بلها إني قلت مالله واحد هذا هلاسنا الرمودي نفتي ده هنقاري وقف أنا وهي سبان هنقول تعجي إنه هرسي هجعيل هنتاقي عيل كوبارو إنه هجرداني أنا هم يا مركا هسا مركو قفكو دوني إنه هسا ما أما إنه وحقرا أما حل أبور نقول وحبون بأكو كلفة markii aad hindisaysay inaad buugii qaran qaadaysid wax qortid sababtii kugu weyneed ee kugu kaliftay waa sheeko jacayl wiilka yarka markuu koriyo soo koriyo hadda sun gabarta isbartaan ay sun gabadha hadba dirbi kala dhacay baashu sheekada sameynteeda heesaha macalmo yeelato mugti marka adigu waayo adoo xitaa qurbo joogto ayaan ku soo marin waayo qol oo waqtigu waxa leedahay maalintii tiro badana oo habeenkii tiro badana oo balantii xilliga wax badana oo qarash la'aanta dib badana oo telefoon xumo dib badana ya wax badana hadana cimilooyinka kala duwan waxbana ku soo marka waxa ku soo maray waxa dadka kale weeyay ku kala fiirin waxyaabo cajiib ah laakiin heesaha raba inaan ku qaado aan iska cod xumaade waxa la heestaasi heestas waa tu khaasada waxa la heestaasi berbera soliya sanaak omyaanu baqolayo نفتان كبوكسيسي بيرها موسكي عنبا يرتانو بساسي أبادي قوب كان أكو بوشيري أبا فنتيدي كوبو منهرين في دانسينا كوبو منارك ميادان بلا نقون بالله ميادو جين ها الكتبي قتال مسي قلبي واد بكتا الله بكام بانا هيدرتا بالدماتي كمانا مقال بقول كارسو قطو تليفونكو إيما بوحو تليفونكو إيما بوحو قال هذا نقعد إيري لحق نفسي وعجيب ريد حل البحث والبور ما ودى الحشتة بكي دي لاسي مرود بشو يعويني برواقع قلت يا مركم عيد بحاجة مقرد واختار يا صاحب جعيلك عجيب كسبوقة ويكملتها محن جوابها محن جويها تلح لسعان ده جنبيه جماعة فرس أنا وطا وبحصل كعجوري فنانين تبوا فنانين تبوا مركها هي صياقة جواب قرحان تيها رقالة جواب قرحان وحقاضي عجيب ويدا مقالب كتاه يتوكي وحقاضي اللي بنتيجي يا مركها وحنا وحلا جس وح متقنا مثلا شكينا فنك السجان هسه أنسميها داير عاوق شكينيا وحين نقولين بدوين لكن لها نجعل من واحد جرون لي له مولود موسى أبوان بلال وصل أفريقيا الجو إن هم دوسنا الحكم ودم بيسمي يس هذا اللي يرقوا قال واحد تقتل وجف معد جف بوتو حلو ما قاعد يجف معدر الدلاء حاجة كذا عيسى بدل كل تقعد عملنا وحكوا لي هذا يدوم بعد هدون حريرة بعد هاي يا بس محي شو هسه لغة ودانتو عجيبها هذا يدوم باتاي دون حريرة باتاي دليو مقال لقادي يفدا فهدي يكتبوا لدب قالوا وضلحي سرورتي دقل ذا دمنتودي وسدا وتسياو دمبر كوغولا صدماي وسو سمين ويا سكود اما هاس ويدي يادو لبتي وحو لحاوغا دوق لهويغو سيدي ليلي او اللي جيو كل بلان قد حالي يقول لي مرا هدان ليلتي سرارتي يولدي لحميقي عاشاقيو لمانيه جعيل لمانيه واسلوق يقول لغا يا بلاس قبر دودنو عانو دليو malaha ay love isku yiino London degano waa ajiib erayada ka soo go'ay ninka daarto diyaarista ilaa waxa kala jiro isleedo la mashoosho waa sax ajiibka in xasuudi la qaado la mashoosho love jacayl ba la tajifon loo diwaay leeyla
leylkiibaan soo lagdooda lama ubaxlan kulula leyla leylkiibaan soo lagdoodo lama ubaxlan kulula leyla marka taas oo jirtaa in la yiraahdo Khaliif Faarax Xayir isagana kaasuu u dhiibay oo yiri laxan isaaro leeda kalsooni ayaa jacayl koriso naftayda ayaa du tahay keli wuxuu ku leeyahay kurbadaan igu laba kordhaysiyo mataqaanaa hadday kaftan ciyaar kula tahay ku leeyahay naftayda ayaa u tahay keli ninkaas waa qatar yaa marka saha jacayl Cabdiraxiin Gallayr leeda Cabdiraxiin Hilowle Gallayr walaadad sii wadi daahiro oo aad saa u samaysay Soomaalidu waxa la arkay adoo mas'uul taagan heesay maya cusub madaan heeso soo shacabka Allah u qaado laba rab shacabku qofku wuxuu jecel yahay wuu qareenaya qofku waxa fiican in adayga u fiican waxa fiican taana qofku intuu awoodo horta waxaan dhaqaalada kuma raadiyo waxay iga tahay fan jacayl waxaan leeyahay in dhiirigeliyo fanaaniintii ay soo baxaan ya hadda idlayro kaleeto من توقف في عام حس عقارنا وكرته وهنينتي رجل وهري سيم حامش بوري كان هسودي حس عقار هستيجي أنت بس قاعد اللي بان تجيجا أو اللي بان إن حاوكين أنت حسش يرجع المنطقة أنا كساعبنا موت حسش فهم يرجع حسش هو قطر يعني سمعت هسه حويد ميلادو حويدي وليادو تلفون دمبيو وقتيان كوبوتاغو ومتامي تايغو حاوكين قاتو والله حق ساري وعجيب بدل استاذ سي حاوكين وجلس تليفون iyo wada seexdo iyo wada leeyla iyo soo wadaniya sameeyay هسه ودنا سبي تعدي لو سميا دنيا 6 سنه عقلي سويا لها لغوي سلكيسي سدود xariga ahayd sawir qaaday iyo suxuf madax banaan intuu baseefta dhulka تعدي baa lagu sameeyaa Surqa Abdullahi Qaad Axmed marka heesaas soo badan oo wada wadaniya sameeyay waxa sameeyay heeso badan oo lagu dhiirigelinayo maamul goboleedyada okay ugu dambeyntii su'aasha ugu dambaysan ku weydiinaya maxay shacab weynaha ina daawanaya aad u gudbinaysaa talaayo shacab weynaha waxa leeyahay colaad ku bixisaan inta dhaqaale colaad ku bixisaan nabad ku bixiya waxaadna ogaataan saxaafadda Soomaaliya duruufaha askaysta duruufahaas waxa uu baan dhaqaale darro waxa laga yaabaa ninka wariyaha ah inuu u shaqeeyo nin ganacsada ah oo warbaahin samaystay waa markii ugu horeysay ee dhacdo dunida in la arko TV ama idaacad laga xayeysiiyo dawo ay mamnuuc ka tahay caalamka marka waxaan dhihi lahaa duruufo badan iska jiraan laakiin waa daala dhacaynaa taageeraduna loo baahan ma shacabka saxaafadda soo haystaan aad isu haystaan waxaa jira kaliya niyo ku reeranahay aniga waxba iga sheegin niyo waxba ku siin waxba iga sheegin waxaana iska dhamaanay markaas u wadno maanta shalay ma aha markii hore waxaa jiray warbaahin la kala safan qabiilada iyo la kala safan ayaa jiray taageer hogaamiye kooxdii maanta wax isku jiraan Kenya ma laha warbaahinta leh maanta TV caalamka dhan baa laga daawanaya Kenya adkaysa dawladda ayagu ay ma laha TV aad ka daawan kartaa oo horan jooga daawan karo marka waa ka horeynaa East Africa ka horeynaa warbaahinta tartan uu jira dhexdeena ah aniguna maanta waxaan ka shaqeynayaa inaan saxaafadii suxufiyiinta Soomaaliyeed maanta oday weyn ah hadda oday saxaafadeed aan ahay hadda xitaa xoogay rabash iyo kabadin samay jiray maanta iga suurtooday rabashkii kabadinta sameeyay wala da'du waxay ku kordhinaysaa marka raggii ugu badnaana suxufiyiintii aan isku haynay hoggaanka saxaafadana waa heshiina waa dhamaysanay warbaahintina sida annaga asad ururada saxaafadii aan u heshiinay inay iyaga u heshiiyaan oo hal meel laga duulo oo aan tusino in adduunka wax la bedeli karo ayaan ku taamaya waa safarkii nabadeed aan ku joogo hadda Kampala halkan rag baan ku balansanahay waana kulmi doonaa wariyaasha jooga Kampalana maalin si fiican ku dhacay doonaa wala warqadinayna aad baad u mahadsan tahay daawadayaal gabi ahaanba barnaamijkeeni Karsan iyo Kampala oo toddobaad kasta si toos uga daawataan telefishinka caalamiga Karsan TV intaasaan ku soo gabagabeynaa waxaan u mahadcelinayaa Daahir Cabdullaahi Calasow oo ah suxufi weyn qoraan oo igana qayb qaadanaya barnaamijkan intaan ku kulmi doona barnaamijkan dabada xigta sida iyo manana